magacayga Ismaaciil Cilmooge Axmed bulshada meeshaas ku timid nin walba masab ku leeyahay 114 Quraanka Kariimka ku salaamaya salaanka bacdi marka ii horeyso horta boolajasi baan ka bixinayaa ereyga koonfur galbeed waan ka go'nay leeyahay waa qodobka koowaad degmadan shacab badan baa ku nool maayo maxaa tiri bale maxaa soo badan qaxooti ilaa 15 kun dhan baa ku nool maanta waxa qabad dawladeed baan u baahanahay gudoomiyaha degmada mar kastaba dawladda magacaabada kareeto dawladeed baa lagu magacaabaa hadba kii dawladda noo keentaan u sacbatumayna gabar hadda noo keenay hadda wiil loo keenay macaarid kuma nin hadba ruux la keenay ayaan ku ayadaynaa dawladda koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa dawlad meel aan lahayn nolol kama jirto meel dawladda gurmada loo sameeyaa dhaqaale loo sameeyaa shaqaale la siiyaa taa horta ilaahay ku maasan dawladda ku maasan tahay inaan waxna noo soo magacaabta ay naga tagin ay naga warqabta aad baan u rabnaa wixii khalad ah oo miidiya loo samariyayna raaligelin baan ka bixinaynaa anagoo beeshii odayaasheeda samadoonadeedii ah waxaas jira oo raaligelin ka bixinayaa dadku Soomaalidu waxay dhahdaa isku aragti ma nihin hebelow bakool sare wixii soo marayna degmada Ceelbarde way ku taabana qaadatay arrintaas shalay baaqa ay bixiyeen duqeyda waa arrin raaligelin laga bixinayo annagoo odayaasha degmada Ceelbarde dawlad la'aan ma shaqayso labada warqadood dambaa lala shaqayn ummadana dawladii shacab bay kala tahay dadka shacabka inta meel iska istaago iska sacbatumo hebel baa dhisanaynaa horay Ceelbarde u soo martay waana lagu daalay dawladda nidaamka ay wado hadday caaw mid kala qortay hadday tii hore qortay iyada mas'uulka waxaan leeyahay aniga ha laga raali noqdo baaqi shalay odayaasha dhaqameedka ee degmada Ceelbardaan nahay gobol baana xukuma qaybtana xukunta madaxweynahana xukuma ninna dharigu ku korsanayay ma jabiyo arrintaas shalay arrin khalad ay ahayd baaqaas haddaan odayaal dhaqameedyada degmada Ceelbarde raaligelin baan ka bixinaynaa nidaamka ay wax ku wada dawladdan waan raacaynaa gudoomiyaha hadisraad baa warqadiisu cusubtoon la shaqaynaynaa cidii fahmilaana sharci la'aan baa u geynaysay shacabnimo haddii walba bur qaadanayo meel istaagayo dawladnimo wax ku xoogi karo uu ku xoogi lahaa Soomaalina awal bay taa isku rafaaday waxaan leeyahay cid kasta oo khaldan inay hoos u aragto gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay mas'uuliyad inay jirto dawlad inay jirto si sababtoo kala sameeyay sharci inuu jiro in hoos loo dayo haddii wax noo qabanaysa degmadeena Ceelbarde gudoomiyaha dhisano calan u yeelay wayna soo martay waxbay qaban weydeen mas'uuliyad la'aanta ugu wacnay hadda waxaan leeyahay nidaamka iyo dawladnimada degmada Ceelbarde ay ku socoto iyo waxqabadka ummadda hay'adaha ay u qabanayaan iyo nolosha dadku abaaraha u kaga soo baxay yaa laga carqaladaynin madaxweynaan leenahay gobol baan leenahay qayb baan leenahay nidaam xilka jiidis ma jiro wax dhalaanana ma jirto arrinta hoos loo dayo duqeydaasna ha laga raali ahaado codkay shalay bixiyeen haddaan odayaasha degmada Ceelbarde ee dhaqameedka dadka shacabkii masaakiintana dibrid yaa lagu sameeyay gudoomiye waxa sameeyay dawlad annagu mid allaala midkina loo keeno oo warqadiisu u dambeysay baa sax noo oo systemka dawladda ku taagan annagu aad baa gudoomiye ahaa daaweeyaa lagu bedelay mar labaad baa ka noqon leeyay haddana ka noqday kii dambe umaan anagu raacayna systemku saas noo leeyahay wixii halaysan oo dawlad la'aan garasho la'aanteed ay u geysay odayaasha shalayto yiri koonfur galbeed baan ka go'aynaa koonfur galbeed laba jeer baa waxa la ka mid mani marba kool sare marra gudiyooba oo gudoomiye u yahay aniga xitaa ku jiray buu labadii waxba lagaga waa dawladda boolis sabay ilaahay sharci ku shaqeyso annaguna dawladda koonfur galbeed baan xukunta ka tirsanahay gobolka Bakool degmada Ceelbarde magaalada madaxnooda waa Baydhabo madaxweynuhu waa ninka leeyahay lafta gareen waxaan jeclahay shaqo wanaagsan midna annagu tan u dambayso ma raacina warqad wareegtay oo imaato
gudoomiyaha la soo magacaabo ka dambeeyo ma raacina mid ka kale naga bedelan male السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هادي بكم مرموي دولتي هادي ودبنا لو سعودي انت كلا كونفور قلب وان كلا نقرني كالسوني دي دad قرا ما dhihi karo kulligan anagu kuma raacsan dawladda anagu koonfur galbeed gobolka anagu waa Bakool degmada anagu waa Ceel Berde magaalada madaxda waa Baraawe sidaas u taxanahay sidaasan yaanu taxanahay sida hal loo ogaado lagu soo dhawaado naga daayay khilaafka dadkii nabad doonada ahaaba tiina dadka waxay ka daayay khilaafka sidaas madaxweynaha waa lafta garan been maxay tari runtu waa sida meel kale kuma xidhin karno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirna man odayaal oo nabadoono oo waasiyo oo degmadan ku nool eraya ka soo baxay oo anagu qoonsanay raaligelina ka bixinana waan rabnaa waxaan raaligelin ka bixinaynaa erayga ay dhahayaan odayaasha anagu waxaan ka go'aynaa koonfur galbeed kuma tirsanay leeyihiin annagu shalayna koonfur galbeed baan ahayn maantana koonfur galbeed baan nahay dawaye cabdulaahi la yidhaahdo dawaye cabdulaahi maalinku noo yimid waan soo dhaweynay gacan fal baan ku soo dhaweynay annagoo u aqoonsan gudoomiyaha degmada nuyi 5 saac iyo bar habeenimo waxaa u soo dhacday isna erin baa u soo dhacday ninkii shalay xilka laga qaadayna waxaa u soo dhacday warqad magacaabis ah dadka bini aadamkaana aqliba ilaahay siiyey aqliga waxaa ilaahay noo siiyey in aan ku garanno waxyaabaha iyo waaqac jira waxa weeye waxaan meeshan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha degmada Ceel Berde mudane Haadi Siraad Cumar erayada walaaladani iyo odayaashana in raaligelin ma ka bixinna koonfur galbeed waxaan leenahay arrintaas kuma raacsanin ma qabno islama qabno waa wax dad khaas oo yidhi raaligelin ma ka bixinna waan la shaqaynayno gacan furna waa ku soo dhawey sidoo waxaa la adoon hooyadii ninkii qaba hadba ninkii hooyadii qaba abiya sidoo shacabka magaalada degan hadba ninkii markaa xukuum baa masuulkoodii ninkii asaga ahaa waxaa weeye waxaa dhacday haddana warqadda waa laga laabtay waxaa lagu soo celiyey haadi oo hadda kahor magaalada gudoomiye ka caqabadna aan laga kulmin intuu xilka hayay wanaag mooyeen ninkan mar haddii asaga xilka lagu soo celiyey haddana wada shaqayn wanaagsan asaga waa loo hambaliyey wax baryeen gacan furna ku soo dhaweeyey gudoomiyaha degmada Ceel Berde way soo dhawo waan leenahay waan la shaqaynaynaa waan la shaqaynaynaa insha Allah dilay karaa